halkani waa BBC Afrikada Bari saacadu waa 2 duhurnimo oo gow ah waxaad naga dhageysan kartaan mowjadaha gaagaaban FM-yada Facebook iyo boggeena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo khamiis ah bisha Oktoobar ay tahay 8 sanadka 2020. idaacaddan duhurnimona waxay idin soo jeedinaysaa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdulaahi ee qodobada aad ku maqli doontaana waxa ay kala yihiin bangiga adduunka oo ka dayriyay saameynta uu fayraska corona ku yeeshay dhaqaalaha Afrika. reer miyiga Puntland oo qaati ka taagan ayax ku degay deegaano ka tirsan maamulkaasi. waxana nadi gadaal buu ka tuuraya waxana afku ku cunaya marka waxa weeye dhibaatadan hadaa ilaahay si u gelin yani wax harayo oo adduunyada maba jiraan ba sida anagu aan fiirnay. aqalka sare ee Itoobiya oo sheegay in haddaan awood military loo adeegsan doonin gobolka Tigray. Kenyana waxa uu weli jahwareer ka taagan yahay furitaanka iskuulada ee lagu wado in la furo Isniinta soo socota. qodobadaas oo faahfaahsan iyo wararka ciyaaraha ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddan duhurnimo oo ay soo saareen Maxamed Cabdiraxmaan iyo Samiir Cabdulaahi Jaamac. balse waxaa intaasoo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da iyo Axmed Mursal Xuseen. mahadsanid Kawthar. war ka soo baxay xukuumadda Jarmalka ayaa lagu sheegay in kiisaska la xaqiijiyay ee fayraska corona ay mar kale cirka isku shareereen. kiisaska fayraska ee la xaqiijiyay ayaa 1000 qof kor u dhaafay 24 saac gudahood. tiradaas ayaan ah tii ugu sarreysay tan iyo bishii Abriil. xukuumadda Poland ayaa sidoo kale diiwaan gelisay koror maalinle ah oo kaas la mid ah halka Belgium iyo Talyaaniguna ay sii adkeeyeen xayiraadaha ka dhanka ah fayraska COVID-19. maxkamad ku taal dalka Spain ayaa meesha ka saartay amar horey loo soo rogay oo qayb ahaan bandow lagu gelinayay magaalada Madrid iyo magaalooyin 9 ah oo jaarla ah. mas-uuliyiinta heer gobol ee Madrid ayaa maxkamadda u gudbiyay cabasho ka dhan ah xayiraadaha ay soo rogtay xukuumadda dhexe. Narjis Mohammadi oo ah gabar caan ah oo reer Iiraan ah una dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ayaa jeelka laga sii daayay kadib markii la dhimay muddadii jeelka ee horey loogu xukumay. gabadhan ayaa xirnayd tan iyo bishii May ee sanadkii 2015 iyadoo markii dambena lagu xukumay 16 sano oo xabsi ah. Narjis Mohammadi ayaa hogaamiyayaasha dalkaasi ku tilmaantay kaligii taliyayaal diinta ku gabada. saraakiisha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaana ku baaqay in gabadhaasi la sii daayo kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in fayraska corona uu ku dhacay. qofka madaxda ka noqonaya ururka ganacsiga adduunka ayaa noqonaya haweeney, waana markii ugu horeysay ee haweeney ay ururkaasi madax ka noqoto 25 sano oo ururkaasi uu jiray. ururka ayaa doonaya in uu u magacaabo agaasimihiisa guud hadba qofkii loo bato kadib markii ay isu soo hareen gabar ahaan jirtay wasiirkii hore ee maaliyadda Nigeria iyo sidoo kale gabar haatan ah wasiirka ganacsiga ee Kuuriyada Koonfureed. ugu dambeyntiina dagaalka u dhaxeeya xoogagga Azerbaijan iyo kuwa Armenia ayaa ka soconaya gobolka Nagorno-Karabakh iyadoo dhanka kalena ay socdaan dadaallo labada dhinac lagu dhexdhexaadinayo. wararka ka imaanaya gobolkaasi lagu muransan yahay ayaa sheegaya in caasimad goboleedka Stepanakert ay haleeleen duqeymaha ka imaanaya ciidamada Azerbaijan iyo Armenia ayaa ku eedeysay in ay bartilmaameed ka dhigatay tuulooyin ku yaal furintii hore ee dagaalku ka socdo. warkiina waa naga intaas Kawthar. aad baad u mahadsan tahay Axmed Mursal Xuseen ayuu ahaa oo wararka caalamka ee BBC-da inala socodsiinayay. markana dhageystayaal u diyaar garoowa qaybaha kale ee idaacadeena. waa tahay duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal aan ku bilaabna ee waxaa goor dhaweyd magaalada Jigjiga ku geeriyooday Allah u naxariista ee ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeer sida uu BBC-da u xaqiijiyay wasiir ku-xigeenka madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida ee Cumar Faaruq Warfa. marxuumka ayaa maalmahanba howlo u gaar ah u joogay magaalada Jigjiga. markana bangiga adduunka ayaa sheegay in cudurka safmarka ah ee COVID-19 uu dib u celiyay dadaalo xoogan oo ay qaaradda Afrika ku bixisay kobaca dhaqaalaha iyadoo la filayay in dhaqaalaha wadamada qaaradan uu hoos u dhaco 3.3% sanadkan lagu jiro ee 2020. hase yeeshee warka wanaagsan ayaa ah in bangiga uu saadaaliyay in dhaqaalaha uu soo kaban karo sanadaha soo socda. Samiir Cabdulaahi Jaamac ayaa inoo haysa faahfaahinta warkaasi.
afrika ayaa ilaa iyo haatan ka badbaaday saamaynta ugu xumeed ee fayraska safmarka ah marka loo eego heerarka caabuqa oo ka hooseeya qaaradaha kale, balse xayiraadaha dhaqdhaqaaqa ee loo soo rogay in lagu xakameeyo faafidda cudurka ayaa keentay in uu hoos u dhac ku yimaado dhaqaalaha wadamo badan, gaar ahaan koonfur afrika oo ah wadanka labaad ee ugu dhaqaalaha badan. Bangiga Adduunka ayaa ka digay in 40 milyan oo Afrikaan ah ay geli karaan xaalad faqrinimo baahsan. Bangiga amaahda bixiya ee fadhigiisu yahay Washington ayaa sheegay in koboca gobolka uu gaarayo 2.1 boqolkiiba ilaa sanada 2020-2021, taas oo ka hooseysa sanadii 2019 oo uu ahaa 2.4 boqolkiiba. Marka laga reebo koonfur afrika, gobolka waxa uu u muuqdaa in uu ka badbaaday dhibaatooyinka caafimaad ee fayraska corona uu sababo. Marka loo eego qiimeynta adduunka oo ah 3.4 boqolkiiba kiisaska iyo 2.5 boqolkiiba oo dhimasho ah guud ahaan caalamka, xanuunkan ayaa la filayaa in kobaca dhaqaale ee qofkiiba uu gaari doono heerkii 2007 dhammaadka sanada soo socota, sida uu bangiga sheegay. Koridda dhaqaalaha sanadkan ayaa la filayaa in ay saameyn adag ku reebto xayiraadaha ay soo rogeen dowladaha oo dagaal kula jira fayraska. aad bay u mahadsan tahay Samiir Cabdulaahi Jaamac. Markana dadka xoolo dhaqatada ah oo qaybo ka mid ah Puntland ayaa walaac xoogan ka muujiyay ayax ku degay deegaano ka tirsan maamulkaasi, kaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay. Ayaxa ayaa hadda faraba'an ku haya deegaano 120 kilomitir u jira magaalada Garowe. Axmed Maxamed Jaamac Axmed Koodey waxa uu ka mid yahay dadka uu saameynta ku yeeshay ayaxaasi. Khadka telefoonka ayuu goordhaweydii ugu waramay. maanta maalintii ku shanayd ayuu qaabku wuxuu ka soo baxay nugaal ka soo baxay 4 maalmood oo ka dambeysay wuxuu soo furay agadhac inta u dhaxaysa guriga la yiraahdo gudbo oo gudbaha u leeyahay oo jariiban iyo u dhaxeeya nugaal u dhaxeeya bahalkaasi waxa uu soo geeyay isaga oo raax u socda 4 midab uu lahaana ku dhantay sida caarihii xareedkii iyo diinilihii iyo gubadlihii 4tiba waxay leeyihiin ay xalahaan jireen. bahalkaasi marka uu soo galay agadhaca uu soo galay waxa uu fariistay meelihii la xooluhu ay ka degeen sida maxaan ku dhahaa gudbaha u dhaxeeya jariiban iyo guriga la yiraahdo Garowe iyo Gaalkacyo oo dusha geel qarisa gudbahaas oo ka go'an 28 godob iyo gudbaha dushoodii waa uu fariis. bahalkaasina wuxuu ahaa bahal 3-4 raax u socda. markuu meeshaas soo galay waxa uu sameeyay meelihii laga degay naqli laga degay oo xooluhu fariisteen ayuu wuxuu ugu harsaday si toos ah oo laga bilaabo guriga la yiraahdo Awrhulus Macalwo laba ay taray Naxarbaxsho Feerati oo deegaanada aad ugu barbarayn. waxaad sheegtay in maalintii shanaad uu dhibaato idinku haya ayaxu, bal maxaa tallaabooyin ah aad qaadeen si aad isaga difaacdaan? walaal waxaan qaadnay markii dhulkaan dhul banaan male ilaa gudbaha hadda anigu aan kuu sheegayo waxaan qaadnay wixii nagaga habboonaa sida rasaas, jirigaamo, taayiro, meelaha gudbaha iyo daylo dhammaan iyadoo aan adeegsanay oo ciidanku iyo dadkii reer guuraaga meel kasta ay isaga yaabaan. meeshaan 120 kilomitir bay u jiraa Garowe. hadda anigu aan kaala hadlayo reertooyin baa la yiraahdaa dadkii deegaanka ku noolaa ilaa Hayaanle ilaa guriga Awrhulus ilaa guriga Qalaanqa ilaa guriga maxaan ku rahdaa Shakaal ilaa Mayle oo tuulooyinkaas markuu ku haysaday dhammaan dadku way awood u heli karay ama jirigaanahaas ama maxaan ku rahdaa xabada rasaas ama taayiraas waxaas la isticmaalay. wasaaradda deegaanka ee Puntland oo aan dhawaan la hadalnay waxay noo sheegtay inay wado dadaalo, marka dadaaladaas idinma soo gaarin miya? dadaalada deegaanka ay wado waa okay weeye. maalmahaas wixii ka dambeeyay ilaa 5 bari dabada kaga soo jireen si fiican iyo si lama arag iyo lama maqala baa wasaaradda deegaanka Puntland ay aad noola dadaashay oo bahalkaas ama qalab ha ahaato ama maxaan ku raadday wadaha ay si fiican noola dadaashay oo ilaa iyo haddana ay gacanta weli ku haysaa oo nama shaqaynaya. dadaaladaas aad bay noo anfaceen. meelihii gudbaha ahaa oo gudubkaa reebantay ugu kooneeyey waa laga kacshay. hadda wuxuu saaran yahay oo dadkii iyo dayuuradiiba kula dagaalamayaan laga bilaabo gudbaha maxaan ku rahdaa sida maxaan ku rahdaa dusha geel qariso oo ay ugu sabatay shilmaxaraare ilaa bilbaa sare cadaadle oo cagadhaca ilaa galool la daalkii waa gaaray oo dushaa geel qarisaa oo dhinacana ku haysa Mayle iyo wixii sidaas ayuu hadda saaran yahay. gudbihii hadda aan kuu soo tirinayana waa laga kacshay. roobna waa nagu daay oo roobkaasna waa laaleyey. dayuuraduhu aad bay u shaqaynayeen. wasaaradda deegaanka Puntland aad bay noola shaqaysay iyagoo qalabkaa iyo dayuuradaha noo keentay saacad macalkalkiislahayn oo saacadda haddeer ay nala shaqaynayaan. marka haddii ay dhibaatadan sii taagnaato maxaad isleedihiin xaalku wuu noqon karaa? walaal dhibaatadan haddaa ilaahay xaggiisa ka sugin dhibaatadan waxaa haraya geedkii oo ebeer ah oo naqii ka baxay iyo diirka uu lahaa dhammaaday baa haraya kuwa hawada waxna naqii gadaal buu ka tuuraya waxna afku ku cunaya. marka waxa weeye dhibaatadan haddaa ilaahay si u gelin yacni wax haraya oo adduunyahayda maba
jiraan ba sida annagu aan fiirnay sababtoo ah waxa weeye waa halkii geed 10,000 oo xadooba baa ku soo dhacaysa geedkii oo fiiqan un baa la arkaya kaasi wuxuu ahaa axmed maxamed jaamac axmed koodey oo ka mid ah dadka uu saamaynta ku yeeshay ayaxa oo ii waramayey weli halka aad nagala socotaan dhegaystayaal waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. xubno ka tirsan sanadka Kenya ayaa ku dhaliilay wasiirka waxbarashada ee George Magoha qaabka uu u wajahay hanaanka dib loogu furayo waxbarashada dalka. waxa ay sheegeen in wasiirkan uu shacabka la wadaagin talaabooyinka looga taxadarayo xanuunka keenay in markii horeba la xiro iskuulada. dhanka kale ururka macallimiinta ee NAT ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo go'aanka dib loogu furayo iskuulada. Macallin Cabdirasaaq Xuseen Aadan waa xogayaha ururkaasi ee deegaanka Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Qadka telefoonka ayuu igu waramay. Horta waa soo dhaweynaynaa dib u furista iskuulada la furayo. Waxaan u soo dhaweynaynaa waxa weeyaan sanad dhan ayaa qasaaray oo ilmihii hakad geliyey. Marka cudurkana waxaad moodaa hadda inuu sidii hore u dhaamo isku socodkii baa socdaa gaadiidkii baa socdaa marka maadaama dadku uu isku socdo maxaa ilmihii iskuulka looga reebayaa haddana wasaaradda iskuulka dhammaan may wada furine secondarygana waxay ka furtay halkaas oo bombo ah oo imtixaanaad u fariisanayaan iskuulka hoose dhexena waxay fureen galaaska sideedaad iyo galaaska afraad oo manhajka cusub ee ku howlgalayo waalidiinta qaar iyo dad kale ayaa walaac ka muujiyey tallaabadan dib loogu furayo iskuulada oo waxay sheegeen inaan aad loogala tashan arrintaasi marka inaga ka urur ahaan cabashadaas ma idin muuqataa والله ما أركي أرد على وصلة سوايو اللي بدأ هو شاعي إن ما أركاي أنت stakeholders أما أرد education ساميسو إنه بتفريسان في ICD وكيل فريسي أركانا ولا كرفي متبل أبى لوذي مركز قان كان جزيك ويسوق جاري وبحول حاد قان كما تنبيس أو أمان أنت أتأيقو سيسو أي ما أركي كراعين مركز ما أركو أنا قفكي ما تعرف على حتى وقف أركاي أنا مرينا هنا مع السيود الجديد ubadkeena akhriska ay qaadanayaan aan u jeedino damba kale hayn talaabadan dib loogu furayo iskuulada mugdi badan baa ku jira marka haddii aad u sharaxdo dadka ku dhageysanaya go'aanka dib loogu furayo iskuulada ee isniinta soo socota ma laga yaabaa inuu dib u dhaco wallaahi uma maleynayo waxaa la ii sheegaya dad maxkamadda tageen oo oranayaan maaragtay inay joojiyaan dadna waxay ku andacoonayaan sharciga waddanka u dhigsan kalendarka yaallo ee baarlamaanka uu mariyey ama ansixiyey waqti hore ayaa waxay ahayd in iskuulka taamka horena bilowdo January dhamaadaan bisha afraad bilowgeeda taamka labaadna uu bilowdo bisha shanaad bisha sideed bilowgeedana uu dhamaado taamka saddexaadna uu bilowdo September bisha sagaalaad bisha 11aadna uu dhamaado marka waxay leeyihiin baarlamaanka go'aankiisii uu ka ahaa oo waa hore maartii la hagaajiyay baarlamaanka in dib loogu noqdo ayaa isticmaal lahayd biqar doonayaan oo niman maartii garyaqaaniin ayaa saa ku andacoonayaan laakiin annaga markaan danta fiirno guud tii ilmaha iyo tii waalidka aan fiirino inooma muuqato in maaragtay iskuulka in dib loo soo ay dan ku jirto waayo sidaad ogsoon tihiin taqriiban 7 bilood ugu yaraan ayay ilmihii bannaanka joogaan marka ilmihiina waa iska ciyaal waalidkii way dhibeen wax barnaamij oo loo haya ma jirto haddii ilmihii laanin dhaha guryaha lagu kaydinayaana laguma kaydiyo bannaanada waa isku ordayaan iska ciyaarayaan marka meelaha goobaha lagu ciyaaro waad arkaysaa goobaha lagu dabaasho ilmihii waad ku arkaysaa jidadkii waad ku arkaysaa marka oo maxaa marka akhriskii ay oga baaqanayaan ilmihii aniga ilmo muuqato in maartaay waqti dib loo sii dhigo meesha aan ku hayno hadda wasaaradda waxay samaysay secondarygan hal galaas bay ka sideysay iskuulka hoose dhexna laba galaas bay ka sideysay intaa kaliya ay tahay anigu ma arko kuwanaan ku tijaabin karnaaba soo ma aha wasaaradda waxbarashada ee Kenya way sheegtay goorta ay u fariisan doonaan imtixaanaadka shahaadiga ah ee ardayda sanadkan marka kuwa kalena maxaa laga yeelayaa goorma iyagana dib loogu furayaa iskuulada كل أرنكا وحيلات على وزير كإدوكيشن يو مدحبيني يوصل على لكن كأورهان أنا جالسان عمل سنة هاي أما سيدي ما أرتاي ولا تشجع أيجي أو ما أرتاي كي إيش دي أفوق لي أو ما أرتاي أنا خصوصي لي أي وعيد إني هتفتح ذا كلاس لفرو مدة لما بيكتبنا اسكولا ذكره توصل ولا فرو حديث سامي بلارن كسو بودو أو ما أرتاي دبارتو اللي وجهه إن ما أرتاي دي بقرش الله سميه حديث هوشي تفعل ناتو sida loogu talagalay ee socodkeeda uu noqdo in kuba kalena maartay ay raacaan ayaan doonayna insha Allah kaasina wuxuu ahaa macallin Cabdirasaaq Xuseen Aadan xogayaha ururka NAT ee Gaarisa oo ii waramayay markana gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in waqti xaadirkan aanu jirin qorshe tallaabo militari ah ay xukuumadda Addis Ababa uga qaadayso maamulka gobolka Tigray oo ay xiisad xoogan kala dhaxayso
gudoomiye aadan faarax ayaa tilmaamay inay maamulkaasi cadaadis ku saari doonaan dhanka sharciga. shalay ayay ahayd markii aqalka sare Itoobiya uu go'aamiyey in la jaro dhaqaalaha la siiyo baarlamaanka deegaankaasi. aadan faarax ayaa u waramay wariyahayaga Bashiir Maxamed Caato. go'aanada golaha federationku uu qaatay in dowladda federaalku aynan xiriir la samayn karin golaha xildhibaanada dowladda deegaanka Tigreega iyo kabinetka golaha howlfulinta deegaankaas. taasi waxay ka dhigan tahay dhammaan hay'adaha federaalka ee dowladda Itoobiya wax xiriir ah oo sharciya lama samayn karaan labadaas gole. sidoo kale taageeraha ay dowladda federaalku ay siiso deegaanada iyagu ma helayaan. taas waxaa ku jirta miisaaniyadda dowladda federaalku ay siiso dowlad deegaanada maadaama ay yihiin golayaal sharci darro ah. dhaqaalihii iyo adeegyadii kale loogu talagalay shacabka maamulkaasi maxaa laga helayaa? taageeraha dhinaca dhaqaalaha waxaa loo marin doonaa shacabka deegaanka Tigreega maamulada degmooyinka magaalooyinka ee deegaankaas maadaama degmooyinka iyo magaalooyinku ay leeyihiin golayaal u gaara oo shacabku u doortay si adeegyada dhinaca waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo wixii lamid ah ay u joogsan oo shacabkaasna ay ka faa'iideystaan. maamulka Tigreega ee aad sheegteen in dhaqaalihii dowladda federaalka aad ka jaraysaan iyo kuwan haatan aad doonaysaan inaad gacanta ka saartaan dhaqaalihii iyo adeegyada maamulkaasi loogu talagalay labaduba waa la doortay. marka maxaa kuwan idin tusay kuwan aad u doonaysaan inaad la macaamishaan? golayaasha heer degmo iyo heer magaalo weli lama gaadhin xilligoogii doorasho. xilli ka duwan baa doorashada magaalooyinka iyo degmooyinka la qabtaa. golayaal sharciya oo ay shacabku soo doorteen maamulo u gaara ayay leeyihiin. adeegyada aasaasiga ah ee shacabka loo fidiyana inta badan waxaa bixiya magaalooyinka iyo degmooyinka. gole sharci darro ah hantida dowladda looma marin karo maadaama xidhiidhba lala samayn karin. gudoomiye laakiin maamulka Tigreega waxa uu ku andacoonayaa in doorashada Itoobiya xilligii loogu talagalay ay ku qabteen. haddii marka arrinta la isku hayo ay taasi tahay miyaan idin kaga gar helayn mise waxaa jira wax kale oo aad ku magan tihiin? gar maahin baynu qabnaa anaku waayo dastuurka Itoobiya wuxuu dhigayaa howlaha doorashooyinka inay dowladda federaalku u fulinayso. doorashooyinka heer qaran iyo heer deegaanba fulinayo waa ka heer federaal. dowlad deegaanadu awoodu ma laha inay asaasaan commission fuliya doorashooyinka heer deegaan. waxay baalmareen go-aankii golaha federationka. dastuurka Ethiopia wuxuu dhigayaa haddii xaalado degdega ay yimaadaan in bayaan laga soo saari karo. sidaas darteed iyadoo laga duulay caabuqa coronavirus ee caalamka oo dhan saameeyey xilligii loogu talagalay in doorashada la qabtana maadaama la qaban karin doorasho waxaa lasoo saaray bayaan lagu maareynayo xaalada degdega ah. boordiga doorashooyinka ayaa wuxuu soo gudbiyey inuu doorashada heer qaran ee la qabanayo xilligii 6aad uunan ku qaban karin xilligii loogu talagalay. kolkaa geedi socodkaas dheer iyadoo loo marayo ayaa ugu dambeyntii la go-aamiyey in COVID-19 awgeed aan doorashada heer qaran xilligii loogu talagalay la qaban karin. qaab waafaqsan dastuurka dalka ayaa doorashada dib loogu dhigay. go-aankaas golaha federationku gaadhayna wuxuu ka dhigan yahay waa go-aan dastuuri ah. kolkaa inay fuliyaan way ku qasbanaayeen. marka laga soo tago tallaabooyinkaasi aad qaadeen maxaa kaloo idin qorshaysan? waxaa jira warar sheegaya in xitaa tallaabo military oo maamulkaasi ka dhan ay suuragal tahay. arrintaas waxba kama jiraan. arrin xaqiiqa ma aha. dastuurka wuxuu dhigayaa hal dowlad deegaan hadduu ku xadgudbo dastuurka tallaabooyin in laga qaadi karo. tallaabooyinka laga qaadayo in golaha uu go-aaminayo. tallaabooyinkaas bayaan ku saabsan oo dowladda federaalku ay soo saartay baa jira. bayaankaas wuxuu dhigayaa hal dowlad deegaan hadduu ku xadgudbo dastuurka kow in ciidamada difaaca qaranka iyo ciidamada booliska heer qaranba deegaankaas la geyn karo si loo joojiyo arrintaas sababtay in dastuurka lagu xadgudbo. sidoo kale wuxuu bayaankaas dhigayaa in tallaabo laga qaadi karo golaha xildhibaanada deegaankaas iyo golaha howlfulinta ama kabinetka deegaankaas islamarkaana la asaasi karo maamulka meelgaada ilaa inta doorasho la qabanayo oo cidda ay shacabku doorata lagu wareejinayo. arrintaas si loo fulina waxaa loo baahnaan doonaa hay-adaha amniga heer qaran ama heer federaal inay ka howlgalaan deegaankaas. taasna waxay sababi kartaa isku dhac hay-adaha amniga ee heer federaal iyo heer deegaan. halkaasna waxay waxyeelo kasoo gaari kartaa shacabka oo dhinac bulsho, dhinac dhaqaale iyo dhinac siyaasadeedba ay saameyn kartaa. tallaabadaas in la qaado hadda lama go-aamin iyadoo loo danaynayo shacabka deegaanka Tigreega.
aadan faarax gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Itoobiya ayuu ahaa oo u waramayay Bashiir Maxamed Caato. markana wararka ciyaaraha hadii aan eegno xalay waxaa dhacay kulamo saaxiibtinimo ah. Jarmalka waxa uu barbardhac 3-3 la galay Turkiga. Talyaaniga 6-0 ayuu u adkaaday Moldova. Portugal iyo Spain eber ay ku kala baxeen, halka Poland ay 5-1 ugu adkaatay Finland. markana baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Faysal Bishaar Aligo. Hay Aligo. mahadsanid Caash. baafinta ugu horeysana maanta waxay naga soo gaartay Hire Cilmi Jaamac oo jooga Australia. waxa uu baafinayaa dadka kale ah Cabdullaahi Cabdi Seeraar iyo Ikraan Cabdullaahi Cabdi. waxa uu wardanbeysay ayagoo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 2005. haddaba haddii ayna maqlayaan Cabdullaahi Cabdi Seeraar iyo Ikraan Cabdullaahi Cabdi amaba ay jirto cid garanayso, fadlan warkooda ha la gaarsiiyo Hire Cilmi Jaamac ayadoo wixii warar loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Australia. mubaarak maxamed axmed oo jooga dalka Australia waxa uu baafinayaa Luul Cabdi Seeraar, Qadra Maxamed Axmed, Shamso Maxamed Axmed, Tusmo Maxamed Axmed iyo Maxamed Axmed Faarax. dhammaan dadkaas waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan dalka Itoobiya 2005. haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkooda hala gaarsiiyo Mubaarak Maxamed ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Australia. Fuaad Deeq Daawud oo jooga Switzerland waxa uu baafinayaa dadka kale ah Maryan Cusmaan Jaamac, Muna Deeq Daawud, Qanciya Deeq Daawud, Xamdi Deeq Daawud, Umul Khayr Deeq Daawud. waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan qasax dheere Ethiopia sanadii 2016. haddaba haddii ayna maqlayaan ama ay jirto cid garanayso, fadlan warkooda ha la gaarsiiyo Fuaad Deeq Daawud ayadoo wixii warar loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Switzerland. nuurdiin xuseen nuur oo jooga dalka Sweden waxa uu baafinayaa dadka kale ah Madiino Cilmi Kulmiye, Nadiim Xuseen Nuur, Saciide Xuseen Nuur iyo Cilmi Xuseen Nuur. dhammaan dadkaasi waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan dalka Sacuudiga. haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkooda hala gaarsiiyo Nuurdiin Xuseen ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Sweden. Maryan Faarax Xasan oo joogta dalka Ingiriiska waxay baafinaysaa Fuaad Axmed Maxamed. waxa ugu wardambeysay sanadkii 2013. haddaba haddii uu maqlay Fuaad Axmed Maxamed ama ay jirto cid garanayso, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Maryan Faarax Xasan ayadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Ingiriiska. Sayf Abubakar Amaan oo jooga dalka Ingiriiska waxa uu baafinayaa dadka kale ah Caayisho Maxamed Cabdulaahi, Zahra Sayf Abubakar iyo Manaal Sayf Abubakar. waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Soomaaliya. haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkooda hala gaarsiiyo Sayf Abubakar Amaan ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Ingiriiska. Naciimo Axmed Cabdulaahi oo joogta Switzerland waxay baafinaysaa Qadra Sheekh Maxamed. waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Soomaaliya sanadii 2017. haddaba haddii ayna maqlaysa Qadra Sheekh Maxamed ama ay jirto cid garanayso, fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo Naciimo Axmed Cabdulaahi ayadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Switzerland. Mawa Maxamed Jaamac oo jooga dalka Ingiriiska waxa uu baafinayaa dadka kale ah Nasro Khaliif Saciid, Khadiijo Khaliif Maxamed, Shaadiye Khaliif Maxamed iyo Yaasir Khaliif Maxamed. dhammaan dadkaas waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Kismaayo 2012. haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkooda ha la gaarsiiyo Mawa Maxamed ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Ingiriiska. Cabdullaahi Badri Cusmaan oo jooga Sweden waxa uu baafinayaa dadka kale ah Rooda Maxamuud Xasan, Maxamuud Badri Cusmaan, Xamse Badri Cusmaan, Sacad Badri Cusmaan, Nimco Badri Cusmaan, Sacuudi Cusmaan Xasan. waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Ethiopia sanadii 2018. haddaba haddii ayna maqlayaan ama ay jirto cid garanayso, fadlan warkooda ha la gaarsiiyo Cabdullaahi Badri Cusmaan ayadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Sweden. Axmed Muuse Hodaan oo jooga dalka Switzerland waxa uu baafinayaa Mukhtaar Cusmaan. waxa ugu wardambeysay sanadkii 2016. haddaba haddii uuna maqlayo Mukhtaar Cusmaan ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Axmed Muuse ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Switzerland. Ido Cali Ibraahim oo joogta Muqdisho waxay baafinaysaa Aamina Ibraahim Maxamed. waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Soomaaliya sanadii 2019. haddaba haddii ayna maqlaysa Aamina Ibraahim Maxamuud ama ay jirto cid garanayso, fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo Ido Cali Ibraahim ayadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Soomaaliya. Cali Yaasiin Cabdulle oo jooga
dalka Australia waxa uu baafinayaa Sahal Yaasiin Cabdulle waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Tanzania 2005 haddaba haddii uu maqlayo Sahal Yaasiin ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cali Yaasiin iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Tanzania. Nuruddin Maxamed Cali oo joogo Germany waxa uu baafinayaa dadka kale ah Buraaco Sheekh Ciise, Maryamo Maxamed Cali, Aamina Maxamed Cali, Cabdiraxmaan Maxamed Cali waxa uu wardambeysay ayagoo ku sugan Soomaaliya sanadii 2017 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda la gaarsiiyo Nuruddin Maxamed Cali iyadoo wix waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Soomaaliya. Cali Yaasiin Cabdulle oo jooga dalka Australia waxa uu baafinayaa Nimco Yaasiin Cabdulle waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Muqdisho 2003 haddaba haddii ayna maqlayso Nimco Yaasiin Cabdulle ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Cali Yaasiin iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Australia. Ifrax Maxamuud Xasan oo joogta Ingiriiska waxay baafinaysaa dadka kale ah Runa Qadar Jees, Hooda Qadar Jees, Ayaan Qadar Jees, Muha Qadar Jees, Hoodan Qadar Jees, Xamda Qadar Jees, Shukri Qadar Jees dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay Afgooye Soomaaliya sanadii 2009 haddaba haddii ayna maqlayaan ama ay jirto cid garanayso fadlan warkooda la gaarsiiyo Ifrax Maxamuud Xasan iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Ingiriiska. Cabdifataax Cilmi Axmed oo jooga dalka Belgium waxa uu baafinayaa dadkii kale ah Xakiimo Maxamed Serbiyo, Ibraahim Muumin Axmed, Yaxye Cilmi Axmed, Zakariya Cilmi Axmed, Nimco Daahir Cilmi, Muscab Cali Cabdulaahi iyo Mascuud Cali Cabdulaahi dhammaan dadkani waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Hiiraan 2017 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Cabdifataax Cilmi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Belgiumka. Fardowso Nuur Maxamed oo joogta Belgiumka waxay baafinaysaa Cabdiraxmaan Geelle Cusmaan waxa ugu wardambeysay sanadii 2008 haddaba haddii uu maqlay Cabdiraxmaan Geelle Cusmaan ama way jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Fardowso Nuur Maxamed iyadoo wix waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Belgiumka. Cabdalla Abuukar oo jooga dalka Australia waxa uu baafinayaa Xaliima Axmed Nuur Nadiif waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Muqdisho 2012 haddaba haddii ayna maqlayso Xaliima Axmed Nuur ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Cabdalla Abuubakar iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Australia. Khalid Cabbaas Cumar oo jooga Belgiumka waxa uu baafinayaa Maxamed Cabdulaahi Cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Ceel Barre sanadii 2018 haddaba haddii uu maqlayo Maxamed Cabdulaahi Cali ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Khalid Cabbaas Cumar iyadoo wix waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Belgiumka. Khalid Cabdi Abaa Cumar oo jooga Belgiumka waxa uu baafinayaa dadkii kale ah Niciimo Naaji iyo Axmed Cabdi Abaa Cumar waxa ugu wardambeysay sanadkii 2018 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Khalid Cabdi Abaa Cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Belgiumka. Aamina Maxamed Cabdulqaadir oo joogta Australia waxay baafinaysaa Jacfar Salaad Saalax Cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kismaayo Soomaaliya sanadii 1991 haddaba haddii uu maqlayo Jacfar Salaad Saalax Cali ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Aamina Maxamed Cabdulqaadir iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Australia. Warda Maxamed Maaweel oo joogto dalka Netherland waxay baafinaysaa dadka kale ah Cabdiraxmaan Maxamed Maaweel, Cabdiraxiim Maxamed Maaweel, Cabdicaziiz Maxamed Maaweel, Juweeriya Maxamed Maaweel, Maa'ida Maxamed Maaweel, Najmo Maxamed Maaweel iyo Ubax Yuusuf Ibraahim Maxamed. waxa ugu wardambeysay dhammaan dadkaas ayagoo ku sugan Qoryooley 2016 haddaba haddii ayna maqlayaan ma bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Warda Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Netherland. Maxamed Faarax Cilmi oo joogo Australia waxa uu baafinayaa dadka kale ah Faarax Cilmi Jaamac, Xaliimo Okod Warsame, Sacdiyo Faarax Cilmi Jaamac, Cabdifataax Faarax Cilmi Jaamac
dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan dalka ethoobiya sanadii 2005 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyey maxamed faarax cilmi iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Australia. shukri maxamuud maxamed oo joogta dalka Australia waxay baafinaysaa cabdiqaadir maxamed ciise waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kismaayo 2011 haddaba haddii uuna maqlaya cabdiqaadir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyey shukri maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Australia. baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay Muna Axmed Cali oo joogta Australia waxay baafinaysaa Shamsa Cumar Xaaji waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan muqdisho sanadii 1991 haddaba haddii ayna maqlayso Shamsa Cumar Xaaji ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyey Muna Axmed Cali iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Australia. baafintiina maanta waa naginta faysal iyo Caaisha way mahadsan yihiin waxa inta nooga dhan idaacadeennii duhurnimo oo Samiir Cabdullaahi Jaamac ay soo saartay anigoo ah ka wadana idin la socodsiinay tan iyo